jaaliyadaha Soomaalida ee caalamka ku nool midaba dhinac bay u badisaayeen magaalada Melbourne jaaliyada ku nool ayaa iyaguna waxay hormuud ka ahaayeen dadaalka la doonayay in la isku fahansiiyo waalidiinta Soomaalida qurbaha iyo caruurahooda ku dhashay qurbaha amaba ku barbaaray oo yimid iyagoo aad u yaryar inta badan dhibaatooyinkaasi waxay ka yimaadaan xagga luqadda oo aan la isku fahmin iyo dhinaca dhaqanka haddaba dadaalkan ay sameynayaan jaaliyada magaalada Melbourne waxa nooga soo waramay wariyaha iyaga Ibrahim Cumar Baafo oo isaguna kamida waalidiinta magaalada Melbourne ilmaha dib baa haysto annagana dib baan haysto I think it's the duty of parents to be around and to guide the kids أنا حدان شعر كو قبي جري خفيفة أفريقيا now I need a jacket because it's too cold أورطاد خديجة على علكها جوجسو And as a single mother, she now has to face this massive isolation. So what is our responsibility? Wadadii ugu horeysay ee dhaxmarta waalidiinta iyo caruurtooda ee ku wada nool dalkan Australia gaar ahaan magaalada Melbourne. Waxaana lagu qabtay jaamacadan aan ku suganahay ee La Trobe oo ku taala magaalada Melbourne. Sidoo kalena waxa ka faa'iideysan kara jaaliyadaha kale ee Soomaalida ee qurbaha ku nool. Waxa halkan caawa lagu soo bandhigay 6 daraasadood ee la sameeyay kuwaas oo la doonayo in xal loo helo sida isku fahmi karaan waalidiinta iyo caruurtooda dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya kadib lamaanaha Liibaan iyo Asma iyo 6dooda caruur waxay yimaadeen Australia Liibaan wuxuu mar walba caruurtiisa uga sheekayn jiray in Soomaaliya markii uu joogay uu subax walbo 4 kiiloomitir u lugayn jiray iskuulka taa waxaa ka xumaada caruurtiisa oo aaminsan in dibkaas waalidkood soo mareen aysan iyaguna marin waxay ku kaftamaan hadda waxaan joognaa Australia loomana baahna in aan 5 subax kacno si aan canjeero u dubno anagoo wiita bigseli karno ismaandhaafkan ayaa badanaa dhaliya muran ka dhasha waalidka iyo ubadkiisa arintan oo kale ma ku soo martay mase ma dareemi kartaa sideed u miisaami lahayd dhaqamada iyo fikradaha kala duwan ee qoyskaaga macnaha waxa weeye way fiicneed way habooneed struggle-kii ay soo mareen but that struggle ay children halkan ku marayaan waa ka duwan yahay anagu parents ay soo mareen marka waxay ahayd parents-ku inuu kala hadlo what do you need inaan ka caawiyo for you to be successful I don't think that was relevant do 5 jeer ama canjeero hore loogu kici jiray iyo hadii maartay 4 kilometers la soo maray la soo socon jiray the situation is different macna haddaan shaar ku qabi jiray khafiifa Africa now I need a jacket because it's too cold maxal dharkooda waa loo dhaqaa marka waxaan leeyahay wixii aynu halka ku jiri jiray inaynu ka baxnaa loo baahan yahay waalidiintu inay isbedelaan ilmaha dhamaan waxa weeye hal qola kaligeeda wax ma bedeli karto It's not normal for a child to behave that way, come home late, not listen to their parents. Obviously, there's something wrong. Yes, that's all. If you look at it from a mother's point of view, the father's overseas, a divorce happened. She's got 17 and 19-year-old kids plus younger kids, and her only concern is the music they listen to or the TV shows that they watch. And as a single mother, she now has to face this massive isolation. So what is our responsibility? Our responsibility now is to take care of our mothers, take them out, invite them into our world. Let's not isolate them. Your mom's got a problem with the music you listen to, mate, turn it off. Like, we don't seem to have the same concern for our sons, not in the sense of like, I'm trying to take it away from Sophia, but in the way that you're not really help them set up in this life or the hereafter. waa la isku lugaan yahay dhalinyaradii iyo waalidkii waa isku lugaan yahay dhalinyaradina waxay leeyihiin oo dadkan waalidkii dad wax fahmayaba ma aha caruurtina waalidkina waxay leeyihiin caruurtan wax dhageysanba ma aha marka ujeedada ugu weyn caawa bal waa inaynu fahanno inaan noqono assalaamu calaykum iyo dibidu iib ma aha inayna noqonina markaan assalaamu calaykum ruuxa kale inuu calaykum assalaam ila inta isfahanatu muhiimsan waata waxyaabaha ugu badan ee keena labada ruux inay isfahmi waayaan waa prejudice ruuxa maskaxdiisa waxa ku sii jiray ayuu ka jawaaba markaynu wada hadlayno qaaliban ruuxa waxaan u dhageysanaa inaan u jawaabno laakiin uma dhageysana inaan fahanno
shaqada ugu adag oo meeshaan annaga sida aan rabno waa in ilmaheenu hagaagaan haddaba aniga haddaana kuu sheegi karin adigana aada iga qaadan karin inaa hagaagtid waa problem warsame waxa uu mar walba jacayl qooto dheer u hayay hidaha iyo dhaqanka iyo waliba afka Soomaaliga waxa qalbi jab weyn ku noqoto marka uu arko ubadkiisa oo English ku hadlaayo warsame wuxuu mar walba caruurtiisa ku dhiirigeliyaa jacaylka dhaqankooda iyo afkooda hooyo walaaca ugu weyn ee warsame qabo waa luqadii iyo dhaqankii oo aan u gudbaynin jiilka cusub soo kacaya arrintan oo kale ma ku saameysay mase ma ka warhaysaa wax talo ama tusaale ama haysaa oo ku saabsan sidii loo sii wadi lahaa baridda dhaqanka iyo luqadda Soomaaliyeed jiilka soo kacaya waxaan xal u arkaa macnaha anoon ku noqonayn sheekada la sheegay in guri kasta looga hadlo af Soomaali that's number 1 in dugsi kasta oo dugsi quraana af Soomaali lagu dhigo qayb kamida duruus ay noqoto waalidku waxa la yiri af Soomaali guriga looga hadlo ba waalidkii caruurta ma wada hadlaan hooyadu haday Soomaali ku hadasho she's going to be on the phone waxa la hadlaysaa ma taqaan habaryar iyo eedo iyo bay leedahay islaantii shalayto ma taqaan aroos ka dhigtay markiis maraday xirnayd marka they do speak of Somali at home laakiin dadku waa weyn yara isla hadla caruurtuna qolalka galaan social media iyo Facebook meelahaas ku mashquulsan yihiin waana caruurta aan lagu qoslin laano xataa dhalinyaradu way jecel yihiin af Soomaaliga bartaan laakiin dadku waa weynaba ku qoslaya markay dad waaweyn la fadhiistaan war maxaa leedahay war nacaskan muxuu yahay yani taasi waa problem bay tahay by itself maxaa yeelay waa caqabad mar walba taagan problem solving skills inaad leedahay ugu yaraan ama haddaadan xitaa aadan lahayn you have to know meesha aad mataqaana aad ka raadin lahayd marka haddii aanu Soomaaligeeni aanu sii baran weyno it looks like we are not creating history Soomaaliya waa inaan isbedelno gacmaha isqabsano dhaqankeena xooga aan saarno keena liita caawino keena dhibaysan kaalmayno caruurteena dhaqan iyo diin aan ku barbaarino keena soo kacaya aan taageerno malihi dhaqanka cadaanka aan iska tirtirno waxaan leeyahay keena hooyo aan hormarino xooga aan saarno ilmaheena ku barbaarino doodan ka dhacday jaamacaddan La Trobe ee magaalada Melbourne ayaa waxay u dhaxaysay waalidiinta iyo caruurta isfaham waagooda haddaba waxaan jeclahay inaan la kulmo gabdhaha halkan taagan oo iyagu ka mid ahaa dadkii ka qayb qaatay doodan aan ku hormaro Firdawsa waxaad xiriiri ka ahayd dooda maanta halkan ka dhacday iyo dadkii ka qayb qaatay waalidiintii iyo dhalinyaradii maxaa ka soo baxay wallahi waxaa ka soo baxay in la wada hadlay barnaamijkan ma ahayn mid aan ku raadinayna xal oo isla markaas wuxuu ahaa in aan taabanno dhibaatada aan fahanno kadibna hadhowti sameeyno programyo kale oo looga hadli doono oo wax looga qabto arrinta bulshada waa bilow sheeko bilowgeed waa macnaha wada hadal bilowgiis weeyaan waxaan ka arkaa halkaas xogaa maturity inuu jiro community inay mature soo noqonayaan inay problem inaan qabno ama uu macnaha jiro in la aqoonsan yahay ciyaalkan problemka ma aha annagana problemka ma aha waxa meesha jaa waxay tahay parenting in new culture seen ilmaha waalid ugu noqonaa annagoo culture-kaaneeto macnaha dhaqankii annagoo eegayna dhaqanka meeshaan ka jira annagoo eegayna seen waalid ugu noqonaa oo aanan baabada u xirnin on the mindful macnaha maskaxdaan u furnaa marka waa bilow sheeko bilowgeed waaye dhalinyarada iyo waalidiinta halkan fadhiyey ee caawa ka qayb qaatay doodan bilowga ah ee u dhaxaysa isfaham waaga waalidiinta iyo caruurtooda ayaa waxaa lagu soo qaatay 6 daraasadood oo la doonayo in xal waara loo helo doodan oo bilow ah ayaa la filayaa ilaa iyo sanadkan in sidan loogu doodo oo bil walba halkan la isugu yimaado inta xal looga heli karo si kastaba ahaatee markii qurbaha loo soo guuray ee dadku halkan ay yimaadeen ayaa dhalinyarada iyo caruurtuba jahwareer dhanka dhaqanka nolosha iyo weliba ixtiraamka waalidnimo ay meesha ka baxday waxaana la doonayaa xal waara in loo helo inay isfahmaan caruurta iyo waalidiintooda ibraahim cumar baafe wararka universal magaalada Melbourne dalka Australia